rabbi ha u naxariistay gudoomiyihii gobolka Banaadir ahaana duqii Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow ayaa maanta ku geeriyooday isbitaalkii lagu daweynayay ee magaalada Dooxa dalka Qatar. Gudoomiyihii ayaana u geeriyooday dhaawac 8 maalin ka hor 24kii bishii hore ka dhacay xarunta dawladda hoose ee Xamar. waxa uu marxuum Yariisow hadalkan soo socda jeediyay toddobaadyo ka hor xilli uu ka qayb galay munaasabad iscafiska bulshada looga hadlay xilligaas oo uu dalbaday inay dadku wada cafiyaan isaguna cafiyay. qof kasta oo wax u qabtay cafi aan isoo cafino anigana waxaan halkan rabaa inaan ka ballan qaado qof kasta oo dambiga galay waa cafiyay waxaan rajaynayaa sidoo kale anigana in la wada cafin doono haddaan isoo cafinin cid markaas noo istaagayso oo cafis noo keenayso. Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yariisow waxa uu dhashay sanadkii 1965 dadka qaar waxay sheegaan inuu degmada Hodan ee gobolka Banaadir ku dhashay halka qaar kalena ay sheegayaan inuu magaalada Baydhabo ee gobolka Baayo ku dhashay. wuxuu ahaa aqoon-yahan muddo dheer ku noolaa dalka UK waxa uuna door firfircoon ka soo qaatay jaariyadda Soomaalida ee ku nool dalkaasi. sidoo kale waxa uu xilal ka soo qabtay dawladda hoose ee magaalada London 10kii sano ee la soo dhaafay waxa uu ku dhex jiray siyaasadda Soomaaliya. waxa uu dawladdii ku meel gaarka ahayd ee uu Sheekh Shariif Sheekh Axmed hogaaminayay ka noqday wasiirka lacagta. wixii intaasi ka dambeeyay waxa uu dhan uga jiray siyaasadda dalka inkasta oo ay jirtay muddo kooban oo uu maamulay warbaahineed noqday. 2 jeer ayuu soo noqday wasiirka warfaafinta ee dawladda Soomaaliya. mar waxa uu noqday la taliye sare dawladdii Xasan Sheekh Maxamuud hogaaminayay marna afhayeenka madaxtooyada ee dawladda Soomaaliya ayuu noqday. wuxuu ahaa aftahan hadli og iyo siyaasi fahamsan hadba dhankii u ron maamulka dawladda ee xilligan jira. waxa uu ka mid ahaa wasiiradii u horeeyay ee la magacaabay waxaana xilkii wasiir loogu bedelay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho oo uu ilaa hadda hayay. muddadii uu xilkan hayay Yariisow waxa lagu xasuustaa oo ay dadka badi ka sheegaan inuu ahaa qof si dhow ay isu fahmeen madaxda sare ee dawladda. mucaaradka dawladda nin aan ka gamban oo la hadla ayuu ahaa. sidoo kale kaftankan uu mucaaradka xukuumadda u jeediyay ayaa ka mid ah waxyaabaha ka diiwaan gashan Allah u naxariistay Cabdiraxmaan Cumar Cismaan. waana mar xildhibaanada xukuumadda dhaliisan ay baarlamaanka buuq ka sameeyeen magaaladuna tartan orod ah lagu qabtay bilo ka hor. waxaan wadaantaa wasiir aniga adiga waxaan joognay jimcihii maaratoonka oo aan ka qayb qaadanay haddii siyaasiyiinta ay maalintaas orod ka qayb qaadan lahaayeen stresskana waa ka degi lahaa sabtigii wixii baarlamaanka ka dhacayna kama dhaceen. waxa uu sidoo kale ahaa mid si dhow la socda oo adeegsada inta badan baraha bulshada si gaar ah Facebook bartiisa ayuuna saacadihii ugu dambeeyay ee in yar uun ka hor qaraxa uu sababsaday soo dhigay kulan uu la qaatay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya. sidoo kale muuqaalkii ugu dambeeyay bartiisa uu soo dhigay ayaa ahaa kulan uu la qaatay dad barakacyaal ah kuwaasi oo si qiiraysan iyaguna u hadlay. u baahan inaan qayb ka wada qaadano oo aan maaragtay kaalinteena ka geysano. fajciisa ugu noqday oo aanan hore u arag marka waxa la dhurway Soomaalidu waxay tiraa dhurway u lowsan dhaqaan waa ku banaa mas'uul gudoomiye gobol ah ee shacabkiisa hor fariista gacanta mid walba in gaarsiiyay war xaad qabta waa noo hor waa wax aniga fajciisa ila tahay marka xaqiiqatan aan ka waran. meydkiisa ayaa laga soo qaadi doonaa halka uu ku dhintay ee Qatar. madaxweyne Farmaajo ayaana amray in hay'adaha dawladda calanka Soomaaliya hoos u dhigaan 3 maalmood oo aas qaran loo dhigayo marxuumka. sidoo kale ra'iisul wasaaraha ayaa magacaabay guddi uu horeeyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed. warbaahinta ayayna la hadleen markaan maqaamkiisa gaarno waqtigeena ay timaado guddida halkan taagan oo ka tirsan golaha wasiiradu waa guddida qaran ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre